aan ku bilowna ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa sheegay in haddii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada ee Somaliland la qaban waayo intaasi beddelkeeda la qaban doono doorasho madaxweyne oo xilligeeda ka soo hormarta. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle. gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliland ay wax badan qabsadeen shicib ahaan hase yeeshee siyaasiyiintu ay noqdeen kuwa guuldarrada ugu badan inta badan horseedka ka noqda isagoo madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay haddii aanay suurtagal noqonin in la hirgeliyo doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada in doorashooyin xilligooda laga soo hormariyay oo madaxtooyo ay dalka ka dhici doonaan waa sida uu sheegay. waxa weeye horta waxa la yiraahdaa Soomaaliku ma hada raqayninkii lahaa dabada hayo maanta shacabka reer Somaliland waa shacab wanaagsan oo soo dulqaatay oo qaawan dhulkoodii soo galay oo maanta waxa aragtay magaalooyinka boomika waa private markasta waxa hoojiya oo hoos u dhiga Somaliland dadka siyaasiyiinta Somaliland maanta waxa haysa waa hoggaan xumo waa dawlad xumo waa suldaan xumo waa siyaasi xumo waa sheekh xumo meel aad irsatid runtada dawladda Soomaaliya waxaan tahay nagu darsamay dad caruurahoodii joogaan dibadda galeen waxa duu ka socda oo qabiil ku halaaqiyo nimanka cuamada qaatay ninka la ilaahu naxariista maxamed xajan haddana noo imana inta ma samaysan karnaa intii uu maxamed xajan sameeyay ee ku soo gaarno si gacanta ugu hayay riyaale 7 sano hayay institutions ku hayay inuu nidhaha lagala wareega doorasho lagala wareego xarigar ku dhiibay ayaan ilaa maanta 7 sano iyo 2 sano oo imaka kulmiye gacanta ku hayay magaca kulmiye waddankiisii baaba absolute wanaga maanta leh dad baa doonaya dadka ku ciyaar 94 laakiin jawigii ba oolin jawigii 94 kii ma yaale waxa weeye leadership isku ma laga bedelayaa qofku ma laga saara contract ma la siinay in kastoo kulmiye contract kala siinay hadduu imaka dhamaysan waayo muusan soo wado oo dhamaysan waayna early election ma qabanayna ku eegi mayno naba 2 sano oo arkayna waddanku house buu galay cudurkii aanu ka dawanay 94 kii 91 kii buu ku celiyeen kuwii ka cararay dalka iyaga isqabsadeen inaga maqla 30 sano ayaa iyagu markay qolan yimaadeen sidii haadi soo degay oo doonayaan nimanka qaxiyeen caruurtii qaxiyeen oo caruur leh in caruurtooda qaxiyaan caruurtu waxay war caruur anaad qaxisay gudoomiye ninka ugu dhowbaad ahayd madaxweynaha maanta jooga marka asxaabta siyaasadda leego haddana xisbiga kale mucaaradka ee wadanina ninka ugu dhowbaad ma moodaa maanta in labadii dhinac aad isaga dhex baxday dabadeetana warwarkaasi dadka gaaray iskama dhex bixin wiilkan ku dhex jira aniga maalinta dhaweytu ninka EU yimi ninka EU UNB uu shaqayn jiray 1994 wuxuu yiri 94 kii maaymo halkan dagaalku ka socdo burcay qaawan tahay imakaan ima burca xabay horan ka soo galay 12 habeen war waxa samaysateen wax ajiib leh dumaraadi aan geeska wagi jirin baa samaysay hadana waxa ay qabsoon waayay wadada waxaan sameeyay nabadda sameeyay siday commission ugu heshin waayay can you tell me the reason waan falaasada xisbi waa farsi balmaay marka waxa sidii ugu dhex jiraa laba dhagax waxaan dhagax iyo dhul adag dhexdood ayaan anigana waan isku dhownaa labadoodaba waa tahay gudoomiye waxaad soo gabagabaysay shirkii golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee UCID marka hore bal shirka iyo jawigiisa waxaan u mahadnaqayaa horta dadka reer Burco degan shacbi weynaha reer Burco sida fiican ay noo soo dhaweeyeen hadii goor waxaan Burco waa xareeda Soomaaliland waxaan aad ugu farxay dadka reer Burco si nabadda u ilaalinaya iyo sharafta Soomaaliland marka si sharaf leh oo qurux badan ayuu noogu dhacay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadnaqino waqti fiican oo ku dhacayo waqti dadku qabyaalad iyo bilaay ka hadlayo oo laga waayay wax wanaagsan iyo wax ummadeed iyo haykel institution ba oo iska baabay oo dadkii markaa nimi wuxuu bedelay toonkii taagnaa ayuu bedelay narrative-kii markaa taagnaa arrintii electionka ama doorashadii waxbaad ku heshiiseen beesha caalamka markhaatiidiin ahayd goobjoog idinka ahayd haddana kulan labaad baad yeelateen fariinta aad dadka gaarsiinaysid maanta maxay tahay horta maanta maalin ku fiican yihiin Muuse Biixi marka la eego doorasho iyo wadani dadka nala jooga uu naqday back to Finland laakiin ragana maalin ka fiican timid madaxweynuhu wuxuu yaana waan ugu tagay jidda waan ugu tagnay halkana waan ugu tagnay aniga xirsi marka waxaan ku heshiinay inuu plan B geeni aan wadno laakiin madaxweynuhu warqad noo soo qoro uu leeyahay kana cudur daarto waxay dhacay noogana tacsiyeeyo naga raali geliyo warqadan isku yeeyo ka dhiga go'aan uu ka dhiga warsaxafada madaxweynaha marka wax kula heshiis wax kale soo saaray nimankii wadan anu wax kasto wax doorasho ku dhacaysa waan ogolahay wadan waxayna warbixinta nasiisay xirso iyo waxa soo baxay Soomaaliya marka sabta Britain shirna insha Allah taala laakiin way ka go'an tahay reer wadani iyo madaxweynaha doorkan waanu dhameeyna insha Allah taala
intaana bishan dhammaan horaanta wiikan ayaan soo magacaabna 7 insha Allah taala aan ku heshiino labada xusbi la siinayo mucaaradkana waanu kala saxanayna in baarlamaanka dhammaan ku dhamaansa iyadii tacaare iyo taciilafeen wayna wada dhamaan insha Allah taala madaxweynaha hadda maalinta aragnay sabtidii wuxuu eekaa qof soo jir ayo wax fahmiya Khadar Maxamed Cakuule VOA Hargeysa.